السلام عليكم ورحمة الله أصحابي waad salaamantihiin dhammaantiin waxa aan halkani idinku soo gudbin doonaa hal xaqiiqo oo ku saabsan waddan kasta oo caalamka ka mida haddii aanad hore subscribe noo oran fadlan subscribe saar mahadsanid Afghanistan waxa ay calankeeda bedeshay 18 jeer qarnigii 20aad iyo 4 jeer oo qarnigan ah calankan ugu dambeeyayna waxa ay isticmaashay 2013 sababta badbedelku maaha ciyaar iyo dheeldheel marka aynu hor uga socono Albania waxa ay leedahay dhagaxaanta difaaca dagaalka kuwooda ugu badan caalamka tiradhan 173,000 oo dhagaxaantaas ah oo wadanka oo dhan ku fidsan taas oo ka dhigan halkii kiiloomitirba 15 xabo inay ku yaalaan Algeria waa wadanka ugu weyn Afrika laakiin 10% ayaa ah deegaan dhulka intiisa kale waa saxare lama degaan ah Andoria waa wadanka ugu weyn wadamada aan lahayn airport caasimada Angola Luanda waxaa loo aqoonsaday caasimada ugu qaalisan dunida sababta oo ah waxa ay ku kireeyaan guri 3 qol aan heer caalami ahayn $13,000 waa wali 2009 Antigua Barbuda waxa ay ugu magac dartay buurtooda ugu dheer Mount Obama isaga oo aan weligii halka tagin laakiin taasi may sii waarine markii uu xilkii ka degay 2016 waxay ku celiyeen magaceedii hore ee originalka ahaa Bogibik intii lagu guda jiray rabshadihii 2001 Argentina waxa ay yeelatay 5 madaxweyne muddo 2 week oo kaliya Armenia ciyaarta jeestu waa qayb ka mid ah manhajka iskuulka ciyaalka Australia waxay leedahay goobaha cagaaran ee dalxiiska kuwooda ugu badan caalamka tiradhan 615 goobood marka la barbar dhigo wadanka labaad ee ku soo xiga oo Thailand ah waxa uu leeyahay 147 goobood Australia waxa ay leedahay tuulo yar oo ilaa 100 qof ku nool yihiin waxa lagu magacaabaa waxa aad halka ku arkaysaan balse mar dambe magacii ma sii waarine waa laga bedelay waxaana loo bedelay Fogin Azerbaijan waa hoyga KFC-ga ugu weyn caalamka xadidan 1600 oo square meters KFC waad wada garanaysaan waa cunto Mareykan ka samaysan chicken Bahamas waxa ay leedahay jasiirad loogu talagalay doofaarada si ay ugu raaxaystaan uguna noolaadaan waxaana loogu magac daray xeebta doofaarada Bahrain waxa ay leedahay prime ministerkii ugu waqtiga dheeraa adduunka Khalifa bin Salman Al Khalifa waxa uu qabtay xukunka 1970 waxaanu ka dhintay November 2020 Allahu naxariiste Bangladesh 2004 waxa ay dhigtay record ay adag tahay jabintiisu kaas oo ah safka bani aadamka ee ugu dheer adduunka daddan 5 milyan oo qof iyo xaddiga dhererka oo 1,000 kiiloomitir ka badan ayaa ay dadku isdaba taxeen waa cajiib 2008 prime ministerka Barbados waxa uu abuuray maalin dabaaldeg oo cusub oo loogu magac daray Rihanna Day 2010 ilaa 2011 Belgium waxa ay dhigtay record oo ahaa 589 cisho oo dawlad la'aan ilaa recordka ay jabisay isla Belgium 2020 652 maalmood oo dawlad la'aan shirkad dhisme oo biliis ah ayaa burburisay ahraam qadiimi dhagaxaan 2300 oo xabba ah si ay u dhisto wada cusub 2013 ma ogtahay calanka Benin inuu ka dhex muuqdo nin kale qoorta seef kaga jaraya Bhutan waa wadanka ugu buuraha badan caalamka 98.8% ayaa ah buuro waxaana ka sareysaa jooga dhulka ama badda 3280 Bolivia waxa ay leedahay 5,000 oo ciidan badeed ah iyadoon lahayn wax bad ah Bosnia iyo Herzegovina waxay noqdeen wadamada ugu miinada badan caalamka qiyaas ahaan 150 miino halkii kiiloomitirba cajiib Botswana
waxay leedahay sharciyada baarlamaanka oo la yidhaa Kenya North iyo Kenya South balse ma laha Kenya West. Kenya West waxa weeyaan raabar Mareykan ah oo ganacsada inaad wada garanaysaa baan malaynayaa. Brazil waxaa la rumaysan yahay inay ku nool yihiin noocyada kala duwan ee noolaha ugu badan adduunka. Hal warqad ayaa lagu soo koobay 210,000 oo noocyada la yaqaan ah iyo 2.4 milyan tirada guud. Suldaanka Brunei waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 20 bilyan inkastoo imika la dhaaway ka badan tahay. waxaanu ku nool yahay qasriga ugu weyn caalamka oo lagu qiyaasay qiimeyntiisa 350 milyan oo dollar. waxaa la rumaysan yahay inuu yahay dahabka ugu da'da weyn caalamka isaga oo jira wax ka badan 4,000 oo sano. ciise horti ayaa laga helay Varna Necropolis, Bulgaria. Burkina Faso magaca waxaa loola jeedaa dhulka dadka musuqmaasuqa halka ay 2019 oo kaliya ay xireen 40% qiimeynta caalamiga ah ee musuqmaasuqa.